sideed wada sheekaysi ula bilaabi kartaa gabadh, wiil ama qof aadan garanayn? Maxay yihiin erayada ku habboon ee ay tahay inaad tiraa? Maxayse yihiin ficilada saxda ah ee ay tahay inaad samaysaa? Si la mid ah sida mawduucyada kale ee aan channelka kuugu soo gudbiyo, mawduucani ma aha mid aan kuugu sheegi doono tallaabooyin liita oo aan micno buuran lahayn, balse waxaan kuugu soo gudbin doonaa talooyin awood badan oo ku salaysan cilmi nafsi, kuwaasoo kaa caawin doona inaad wada sheekaysi la bilowdo qof kasta. Sida wada sheekaysi loola bilaabo gabadh, wiil ama qof kasta oo aadan garanayn. Ugu horreyn, faham in qof kasta rabo in la aqbalo oo la daneeyo. Dadka intooda badani waxay rabaan in la aqbalo, waxayna ku niyad samaadaan markay arkaan in la danaynayo. Haddii aad qof u tagto adiga oo iska weynaysiinaya, oo aan wejigaagu furfurnayn, ama iska dhigaya sidii oo aanad danaynayn, qofkuna dabcan wuu iska kaa indhatiri doonaa, kuna danayn maayo. Sababtoo ah qofka laftirkiisu wuxuu rabaa in la daneeyo oo uu dareemo inuu muhiim yahay. Si aad wada sheekaysi qofka ula bilowdo, xogaha isyar dhuldhig, wejigaagana furfur, una dhoolla caddee oo dareensii qofku inuu muhiim yahay oo aad danaynayso. Intaa haddaad samayso, qofkuna la hadalkaaga nafis ayuu ku dareemi, si fiicanna wuu kuugu jawaabi doonaa. Faham qofku jawiga uu ku jiro. Ka waran haddii aad wada sheekaysi la bilowdo qof mashquulsan, dabcan waxaa laga yaabaa in uu kaa gurinba sheekada, adna aad ka xumaato. Ka hor inta aadan wada sheekaysi la bilaabin wiil ama gabadh, isku day in aad ogaato jawiga uu qofku ku sugan yahay, si aad u ogaato in uu qofku wada sheekaysi diyaar u yahay iyo in kale. Tusaale ahaan, haddii aad aragto qofka oo mobilkiisa ku jeeda oo aan wax weyn ka qabanayn, waxaad ogaan kartaa in qofkaasi aanu wax kala qabanayn oo uu si fiican wada sheekaysiga kaaga jawaabi doono. Ururso xog qofka ku saabsan. Miyuu qofku samaynayaa wax xidhiidh la leh waxyaabaha uu xiiseeyo? Ma buug buu akhrinayaa? Ma laptop ayuu isticmaalayaa? Iyo wixii la mid ah. Inaad ogaataa wax badan oo ku saabsan waxyaabaha uu xiisaynayo qofka aad rabto inaad wada sheekaysiga la bilowdaa, waxay kaa caawin kartaa in qofkaasi uu xiiseeyo la hadalkaaga. Ilaa wax uu xiisaynayo ayaad kala hadlaysaaye. Kalsoonida naftu waxay aad uga qiimo badan tahay erayada. Mid ka mid ah qaladaadka ay dadku sameeyaan markay rabaan inay qof wada sheekaysi la bilaabaan waa in ay gargariiraan markay qofka la hadlayaan, sidii oo ay isku dayayaan inay wax xadaan. Haddii qofka aad rabto inaad wada sheekaysiga la bilowdaa uu kaa arka adiga oo gargariiraya, wuxuu ka shakin doonaa ujeeddada aad leedahay, waxaana laga yaabaa in uu ku diido qofkaasi in uu kula hadlaba. Markaad rabto inaad qof wada sheekaysi la bilowdo, isdeji, dhoolla caddee, iskuna kalsoonow. Markaad qofka su'aal weydiiso ee lagu jawaabo, ha aamusin. Qalad dadka intooda badani sameeyaan waa in ay qofka ay la sheekaysanayaan weydiiyaan su'aal kooban oo haa iyo maya lagaga jawaabi karo, marka loo jawaabana ay iska aamusaan, sababtoo ah ma garanayaan wax kale oo ay idhaahdaan. Si aad qofka ula bilowdo wada sheekaysi guulaysta, ha weydiin su'aal haa iyo maya lagaga jawaabi karo, balse weydii su'aalo furan oo faahfaahin u baahan oo la xidhiidha qofkaasi waxyaabaha uu xiisaynayo. Tusaale ahaan, haddii aad aragto qof akhrinaya buug, ha weydiin qofka meesha uu ka soo iibsaday buugga iyo in uu fiican yahay iyo in kale, balse weydii dhacdooyinka buugga ku qoran, si uu wada sheekaysigiinnu u sii ballaadho. Badanaa dadka ka tag iyagoo hadalkaaga xiisaynaya. Marka qofka aadan garanayn wada sheekaysi fiican oo guulaysta la bilowdo, waa in aad ka dhaqaaqdaa oo aad macasalaamaysaa isagoo la sheekaysigaaga xiisaynaya. Taasi waxay kuu saamaxaysaa inaad kulankiina dambe wada sheekaysi fiican yeelataan. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waxay noo balana muuqaalkan muuqaalka xiga.
intaan la gaarinse waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fii amaanillah.